رئيسل وزراء حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البر ayaa habeennimadii xalay magaalada Muqdisho kala qayb galay dhalinyarada Soomaaliyeed kolana weyne looga hadlayay xaaladaha dalka gaar ahaan lagu dul istaagay difaaca dalka iyo doorashooyinka qof iyo codka ah iyada oo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo madashaasi ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay ugu horeyn munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada dhalinyarada Soomaaliyeed ee haldoorka bulshada caasimadda Muqdisho fanaaniin iyo sidoo kale xubno kala socday hay'adaha kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Amiir isagoo kaga mahad celiyay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre inuu dhalinyarada caasimadda kulan isugu keenay looga hadlayo xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka ka jira. wadaninimadu ma ahan oo kaliya inaad niyadda ka jeceshahay. wadaninimadu waxay u baahan tahay ficil iyo fal inaad ku muujisid inaad wadani tahay. aan ku weydiiyay bal ii sheeg saaka waxa aad qabatay maanta waxa aad qabatay ee qarankan u faa'iida oo aanan adiga kaliya ku faa'iideyn yaa ii sheeg qof waliba hadduu saa u xisaabtamo waxaan gaaraynaa meel qarankeenu uu noqdo qaramada adduunyada ugu wanaagsan. ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo naxariistay waxaana lagu abuuray geeyi aad u qurux badan aad u fiican cimilo badan leh oo kala duwan waa meel aan shaarka loo bedelaneyn. saa darteed dhalinyaro waxaynu haysanaa fursad wadamo badan oo dariska ah aysan haysan wadamo badan oo fogfogna aysan haysan. intaas kadib Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo la hadlay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo kumanaan gaaray isla markaana soo buux dhaafiyay hoolka ayaa u ballan qaaday inay dawladdiisu diyaar u tahay inay ka shaqeyso horumarinta dhalinyarada iyagana looga baahan yahay inay qayb ka noqdaan xoreynta dalka iyo jihaynta arrimaha masiiriga ah ee hadda hortaagan dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan rabaa inaan ogaataan dhalinyaro intaasoo dhan waa la idin diidan yahay waxa idin diidan shabaab cadowga ilaahay cadowga muslimiinta cadowga aadanaha gaal iyo muslimba oo ah khawaarijta ayaa idin diidan number 1 inaad noolaataan buu idin diidan yihiin. anu waagi ugu horeysay oo xukuumadda la ii magacaabay waxaan idinku yiri shabaab dhalinyaro dalka xoreysta oo hal xoreeyo anigana waxaad weydiisaan qofka dhalinyarada waxa uu u baahan yahay ee basic ah oo ah inuu qofku wax barasho helo markuu wax bartana inuu shaqaysto markuu shaqaystana in uu dalkiisa asagu design gareeyo shape gareeyo soo ekaanayo mustaqbalkiisa oo tabcan inuu la doorto wax doorto ah idinkana waxaan dhahay dalka xoreeya marka ballankii weli maynaan ka soo bixin wax badan oo kamid ah waad ka soo baxdeen waa la hubaa dagaalka hadda ka socda la yaaban yahay markuu ka socdo aadan yabaal ay leeyihiin sidaaba aadan yabaal waa loo dhexeeraa dadku waay si aadan yabaal lagu qabsan karaa halkan aad ka bilowdeen waa ogtihiin haddaadan adigu bilaabin wiil walaalkaabaa bilaabay mid kula eg baa bilaabay oo maalintaas u bilaabay 10 jeer dhaawacmay qaar aad u badan ku shahiideen qaar badan ilaa hadda caawa ay dagaalkii ku jiraan oo dhalinyarada Soomaaliyeed. marka sidaa darteed dhalinyarada Soomaaliyeed dagaalkaas way galeen dalkana way xoreeyeen wayna ku jiraan laakiin ma dhamaystirna
waxaan u baahannahay cinwaanka quruxda badan oo ah dalka difaaciisa dalka caawa dhalinyarada Soomaaliyeed ee haldoorka halkan fadhida waxaan anigu ugu yeeray oo u rabaa inaan u arko waxa weeye inaan fariin idin dhiibo message inaan idin dhiibo oon idin ilaahno dhalinyarada Soomaaliyeed haddaad tihiin dalka difaaca gabagabada kulanka qaar kamid ah dhalinyaradii kasoo qayb gashay oo uu ka mid yahay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cumar Faaruq ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable iyaga oo ka warbixinaya waxa uu ka dhignaa kulankan iyo sida ay tahay in ay dhalinyaradu garab istaagaan dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha masiiriga ah ee dalka ka taagan marka dadka Soomaaliyeed guud ahaan oo ay dhalinyaradu ugu ballaaran tahay waxaan leenahay maalintiina la joogaa madaxdiina ma taqaanaa halkay idin jiidaysa ayaa tubta toosan ah halkaas halkii saxan ah marka waxaan leeyahay dhalinyaro maxaa la yiraahdaa guuleysta ra'iisul wasaarahana aad arkayseen sida ma taqaanaa qeyrada uga muuqatay sidoo dhalinyarada maxaa la yiraahdaa yani u dhiirigelinay dhalinyaro aan qaadano madaxdeena maxaa la yiraahdaa go'aanadooda aan qaadano in xukuumaddiisu ay noqoto mid dhalinyarada garab siiso shaqo abuur u samayso baahiyahooda ka shaqayso maxaa yeelay dhalinyartu waa backbone bulshada sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in doorasho qof codad la qaban doono balse waxaa ka rabnaa principalska iyo xeerarkii iyo mabaadi'dii lagu diiwaan gelin lahay Cabdixafiid Nur wararka telefishinka Somali Cable Muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank